السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan kusoo dhawaada cashirkeenii taxanaha ahaa ee ICDL gaar ahaan qaybteenii Microsoft Office Excel. cashirkeena maanta waxaynu ku qaadani doonaa Tumble cusub. Tumble sidee lagu soo daraa, sideesa loo isticmaalaa. waxaynu tegi markaan inuu furno Excelkii, waxaynu tegaynaa meeshaan oo aan hore aan ugu sheegnay kadibna waxaynu tegaynaa new, kadibna meesha waxaa ka helaysaa Tumblada hore lagu install gareeyay. kuwaan waxaad ka heli Tumblada online hawada Microsoft Office online waxaad soo dejinaysaa. waxaan soo dejinaysaa soo dejisna caadi sida kan hadda aan ku soo doontaa isticmaalayso ayaad u isticmaalaysaa. install aynu tagno kadibna maxay rabtaa intaan hadda noogu jiro billing statement. marka billing statement aan qaadano kadib aan dhaano create. company name ka muxuu yahay? company name ka waxaan qoraysaa company-ga shirkadda meesha ku qoray magaceeda, kadib meesha ku taalo address-kiisa, yani barnaamij ku diyaarsan fahmayno. waa kana date, tape, invoice, description, amount, fahmayno. calaamad sac marka ka noqoto maxaa sameynaya? waa jiidi. waa sidaan fahmay. midka aragtay meeshaan ka bedeli customer ID-giisa muxuu yahay, taariikhda, statement number-ka, magaca cidda siinayso, biilka company-ga, wixii markan aad ku qoraysaa. haddii mid cusub aragtid kan ku qancino waa iska xiraysaa. kan cusub aad tegay new aad leedahay maxaa rabtaa haye waxaad tegaysaa installed. kani kori waa waxa dhawaana la isticmaalay. kana tegay sales report ma rabtaa gurfo. waa kan dadka wax gadatan fahmayno. productiga shayga la gaday, customer-ka qiimaha lagu gaday iyo cidda ay yihiin waqti kugu qoran tahay. xisaabta kadibna waa kan inta kugu qoran tahay ujeedaa ugu diyaarsan yahay. marka inta aynu kusoo gabagabeynaa cashirkeenii yaraa aynu ku qaadaynay qaabka Tumble-ka loo isticmaalo. intaynu cashirkaani mid lamid aynu dib ugu kulmay anigoo ah Injineer Cali Cabdiqaadir idin leh sidaa iyo nabadgelyo.